Maxaad ka ogtahay qisadii naxdinta lahayd ee maalmahan baraha bulshada wareegaysay, gaar ahaan warbaahinada reer galbeedka? Gabadhan yar ee ujeedaan ayaa ah gabadh yar oo 9 jir ah oo aabaheed u guuriyey oday weyn oo 55 jir ah. Gabadha tan ayaa aabaheed sheegay in uu ka iibsaday odaygaas 50 jirka ah oo uu ka siistay $2,000. Guurku muuqaal ahaan waa guur caadi ah oo gabadha loo guuriyey odayga, balse danta laga leeyahay sida aabaheed uu sheegay ay ahayd in uu helo $2,000 uu reerkiisa ku masaarifo, maadaama uu waayey shaqadii uu hayay, uu waayey masaariftiina ay ku adkaatay. Afghanistan baadiyaheeda ayaa ah meel laga yaqaano dhaqanka ah in gabdhaha yaryarka ah la guuriyo, balse dhaqankan ah in gabadha aabaheed uu sheego inuu iibsaday oo uu iib dartii ugu iibiyey ayaa ah mid isagoo hor leh adduunkana dadkii muuqaalkaas arkay aad uga naxeen. Gabadha tan ayaa laga arkayay sawiraanteeda iyada oo odaygii intuu xaafadda yimiday lagu wareejinayo. Odayga kan gabadha intuu guursaday lama odhanin ha ku weynaatee, isla xilligiiba odayga gabadha waa lagu wareejiyey, waxaana la arkayay odayga oo gabadha sii wata, hooyadeedna ay la socoto, balse gabadha ay dhulka isku jiidayso oo ay ooyeyso maadaama uu iibsadayna horay uu kasii qaatay. Adiga maxay kula tahay qisadani?